qolada Huma Fariska ayaa baaritaan xoogan kula dhaqaaqday mid ka mid ah goobaha ay ugu yeereen hotspot-ka oo ah xaafada ay Soomaalidu aad u degan yihiin oo la yiraahdo Bellville ku taal magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. wixii ajnabi meesha jooga ayaa la qabtay. barnaamijkan ayaan guud markuu sameynaynaa dabcan waxaa la qabanayay waxa ajnabiga meesha ku yaalo dhan iyo waxay kadaan iyo macnaha sumcad darro aad u weyn TV-ga ugu weyn dalka Koonfur Afrika ayaa soo tibinaya la futibinayay. marka waxaa la leeyahay dadkan waxaa lagu qabtay daroogo balaaya qashin. marka balaan isla dhageysan bal waxyaabihii warbaahintii booliska ka yiraahdeen. Welcome back. Home Affairs officials in the Western Cape have conducted routine raids in areas declared hotspots. Within 2 hours, dozens of undocumented foreign nationals have been arrested for a variety of reasons, including one for suspected human trafficking for sexual exploitation. Officials say their main aim is to ensure that foreigners in South Africa comply with the laws of the land. Aisha Ismail has more. Immigration! Finish. This is I ask you, who else is here? Is it only the customer? Yes, only customer. Can you open it? Aye, customer. We cannot wait for you. We are on duty, chief. Home Affairs conducted its operation with the help of SAPs and law enforcement officials from the city of ayaa baarayay sharciyada dhacsan dad kale inay qabtaan kuwa macnaha dokumentiyo oo fayga iska wato ayaga nafsadaantooda lagu qabtay immigration-ka ama socday kuwa maxaan ku yiraahdaa sharci la'aanaha inta waa la qabtay waxa la sii yaab lahaa ayagoo lahaa qaar fakada xitaa warbaahinta waa soo bandhigday oo dambiga isku sii cadeynayay wax badan guryaha xitaa iyo hoteelo loo daato waxyaabo qaran hadda afka dadka loo sheegay xitaa lagu arkay xitaa waa sheegayeen balan ku socon. The city of Cape Town. They are targeting hotspots like Bellville. They visited spaza shops and other businesses to check if foreign nationals employed there were documented. More than 30 foreign nationals were arrested during the operation, and some even tried to escape. But police and law enforcement officials were hot on his heels and brought him back to be arrested. Most of them are undocumented. Some of them are suspected to have fraudulent documents, and some of them have expired documents. So at the moment they are all in contravention of the Immigration Act, and that's why we are detaining them at the police station for further verification. Bellville area is the playing ground of all the undocumented. nimankana waxay u taateen guryo la sheegay in gabdhaha South Africaanka lagu hayo qaab ganacsi lagu hayo oo taatay ceebta adduunka ka dhacday. marka boolisku wuxuu sheegay in mar walba ay ku soo noqon doonaan in baari doonaan bal aragno. sidoo kale waxay sheegeen in maalin walba meel ay baari doonaan gobolkan Western Cape oo hadda hotspot oo aad loo kacsan yahay oo loo baarayo. marka hal is jira ayadana happening here, the drugs, the criminal like robberies using firearms, the prostitution. Most of the foreigners, they are having a lodge whereby they hired the prostitute. This area is mostly dominated by the foreigners who are buying the stolen cell phones and resell it again. They are also able to open, even if the cell phone is blocked. Everyone, they know that they must come to Bellville in order to open up that stolen cell phone. marka Bellville gaariheeda iyo xaafadaha locationada hoostagaba aad bay ayaan tan ugu mashquulsan. muhiimadana waa inaad sharcigaada haysataa dad Bellville aadaysa aad bay ugu mashquulsan dadka waa inaad markaa dhex soconaysan iska ilaalisaa mar walba ay ku soo daadan karaan. halaas ayaan idinka daba keenayna waan mahadsantiin.